السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برشاد حسابتا oo taxaanin u ahayd magacaygu waa Shiina Gestir. Caawa waxaan ka hadlaynaa simple interest qaybtii afraad. Su-aasheena caawa waxay leedahay Ebyan Raage waa gabadh ku nool cariga Soomaaliyeed. Waxaa bangiga dhexe ee Axmed Gurey u taala lacag dhan 10,000 oo dollar, wuxuuna bangigu u saaray boqolkiiba 10 faa'iido ah. Faa'iidadii waxay noqotay 5,000 oo dollar. Haddaba muddo intee dhan ayay lacagtu taalay bangiga? Waqtigu sanad ha ahaado. Marka imsa sano ayay lacagtu taalay bangiga? Waxay noo sahlaysaa su-aashan inaan ka jawaabno qaacidada halkan noogu qoran. Qaacidadeenu waxay leedahay t waxay la mid tahay I loo qaybiyey p loogu dhuftay r. T waxay noogu taagan tahay time, I-dan waxay noogu taagan tahay interest, p-dan waxay noogu taagan tahay principal, r-tan waxay noogu taagan tahay rate. Marka bal aan qaacidadan ku shaqeyno caawo. Waxaan dhahaynaa time oo kaan caawa raadinayna ah wuxuu la mid yahay I oo u taagan interest. Interestigu waxa weeyaan lacagtii ay faa'iido intay noqotay. Waxay noqotay 5,000 oo dollar. Waxaan dhahaynaa markaa 5,000 loo qaybiyey principal. Principalku waxa weeyaan lacagtii ama hantidii ugu horeysay ay Ebyan bankiga dhigatay waana 10,000 ee dollar. Waxaan dhahaynaa halkaana 10,000 ay p lagu dhuftay r. R marka waa rate-kii boqolkiiba inta ay lacagteedu loo dul saaray. Waxaa loo dul saaray boqolkiiba 10. waa rate-ka loo dul saaray. Marka boqolkiiba 10kan halkan kuma soo qori karno, waa inaan u bedelno decimal. Saan decimal ugu bedelinaa? Waxaan ugu bedelaynaa, waxaan ognahay inay boqolkiiba 10 ay la mid tahay 10 loo qaybiyey 100. Markii 100 loo qaybiyo waxaan ognahay inay la mid tahay eber dhibic hal. Eber dhibic hal qaabkan waxaa la yidhahdaa decimals. Decimalkaas ayaan kusoo qorinaynaa. Saan dhahayna lagu dhuftay eber dhibic hal. Halkan markaan joogno waxaan dhahaynaa time wuxuu la mid yahay 5,000 horta halkan noo soo dhig. 5,000 loo qaybiyey 10,000 lagu dhuftay eber dhibic hal. labadan isku dhufo, tirada inooga soo baxdo 5,000 aan u qaybino. markaan labadan isku dhufano haye calculatorka aan aadno 10,000 lagu dhuftay eber dhibic hal waxay noqotay 1,000. waxaan dhahaynaa 10,000 lagu dhuftay eber dhibic hal waxay la mid tahay 1,000. markaasaan 1,000kan halkan kusoo qoraynaa. 5,000 loo qaybiyey 1,000. time waxay la mid tahay 5,000 loo qaybiyey 1,000. eberkan iyo eberkan ha isla baxaan. eberkan ha u baxo, eberkan ha la baxo. 5 loo qaybiyey 1 waxaan ognahay inuu la mid yahay 5. halkaas waxaan kusoo ogaanay lacagtii Ebyan inay bangiga taalay muddo dhan 5 sano. haddii aad rabto inaan hubino 5,000 loo qaybiyo 1,000 inay 5 tahay,
calculatorka ayaan aadaynaa 5,000 loo qaybiyey 1,000 waxay la mid tahay 5 marka Ebian lacagteedii waxay bankiga u taalay muddo dhan 5 sano waxaan rajeynayaa videogan gaaban inuu ka caawiyo mawduuca caawa aan ka hadlayno intii aan ku kulmi doono videogan video la mid ah waxaan idin sidhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu